aan arkay qabri markay tahay galab walba qabrigaasi waa kala dilaacaya waxaa ka soo baxaya qof madaxiisu uu yahay madaxa dameeraha oo kale jirkiisa inta kalena qof binu aadam oo kale uu yahay 3 jeer ayuu sida dameeraha u ciyayaa kadibna wuxuu ku laabanayaa qabrigiisii waxaan weydiiyay buuri gabar meesha fadhiday waxay igu tiri qofka daada hooyada halka fadhida ma u jeedaa iyada warayso iyada wiilka dhashay waxaan u tagay buuri hooyadii waxaan iri hooyo see wuxuu jiraa muxuu ahaa qofkaani waxay tiri innahu waladii wa wiilkaygii waxay tiri maalintii uu seexan jiray maalintii oo dhan galabtii markay tahay buu labisan jiray wuxuu aadi jiray khamradu aad u cabbi jiray inuu soo iibsado ayuu u bixi jiray waxaan oran jiray yaa waladii ilaa mataa tashrabu alkhamr wiilkaygiiyow ilaa goorma ayaad wadi doontaa cabbitaanka khamrada wuxuu hooyadii ugu jawaabi jiray anti tanhaqiina kamaa yanhaqu alximaar adigu waxaad u qaylisaa sida dameeruhu ay u qayliyaan maalin baa wuxuu geeriyooday xilli galaba wuxuuna qabrigaa la geliyey allah wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaala galab kasta inuu soo baxo isagoo madaxiisu madax dameer u weeg yahay jirkiisa kalena qof binu aadam u weeg yahay 3 jeer sida dameeraha uu qayliyo kadibna uu ku laabto qabrigiisii axibati fil islaam cuquubada waalidka waa la arkaa wayna soo degdegtaa habaarka hooyo waa soo degdegaa oo madaaho sidii rasuulkuba yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam maa min danbin ajdaru an yucajila lisaaxibihi alcuquuba maca maa yudakharu lahu min albagyi waqatiicati alraxim xadiiskii sheekh alalbani fi ladab almufrad saxiixu ladab almufrad iyo saxiixu targhiib watarhiib iyo kayrkiiba uu ku saxiixiyey ma jiro dembi qofka binu aadamkaa sida loogu soo dedejiyey cuquubadiisa adduunka la mid ah waxa la yidhaahdo qaraabo goyska iyo hooyo oo lagu noqdo caaq lagu noqdo